gudoomiyaha maxkamadda Soomaaliya waa maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay shirka furmay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan. Shirkaasi oo isugu imaanayaan gudoomiyaasha maxkamadaha sare ee dalalka Afrika. Warbixinta warkan waxaa Khartoum inooga soo diray wariyaheena Cabbaas Maxamed Nuur. shirkan oo uu furay madaxweynaha dalka Suudaan Umar Xasan Ahmed al-Bashir ayaa ahaa shirkii koowaad ee gudoomiyaasha maxkamadda sare gudoomiyaasha garsoorka ee wadamada Afrika iyadoo ay ka soo qayb galeen wadamada Afrika badankooda waxaana dawladda Soomaaliya u matalayay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Ibrahim Idle Suleymaan iyo Saalax Sheekh Ibrahim Diblaawe oo ah gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir. shirkan oo ahaa mid ka kooban laba qaybood ayaa qaybta hore waxa ay ahayd furitaan balse qaybtiisa labaad markii la isugu soo noqday ayaa waxa looga hadlayay waxyaabaha lagu xallin karo khilaafaadka bulshada soo kala dhaxgala kana baxsan habka garsoorka sida uu warbaahinta qaranka u sheegay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane Ibrahim Idle Suleymaan. barnaamijka maanta qaybtiisii hore oo ahayd furitaanka waxa dib la isku soo noqday oo ay garsoorka gaar isugu noqdeen fadhiyadii dambe oo ku saabsanaa laga hadlayay mowduuc ku saabsan fadl munaasacaad kharij taswiyad fadl munaasacaad yani in la dhameeyo ama garsoorka lagu qaado meelo ka baxsan garsoorka dadka loogu garnoqo garsoorka ka baxsan oo wixii khilaafaad ah ee bulshada iyo dadka dhex mara lagu xalili karo ama habab lagu xalili karo oo ka baxsan habka garsoorka intii dadku ay mar walba ay isku iman lahaayeen garsoorka in la heli karo habab kale oo ka duwan oo lagu dhameeyo mashaakilkooda xagga sharci taas oo u fududeyn kara dadkii in ay ku helaan go'aamo xilli ka dhow xilliyadii maxkamadaha oo halka laga yaabo inay dacwad ay maxkamadda ula tagaan oo ay ku qaadato 6 bilood sanad laga yaabo in marka ay maraan hababkan kale ay ugu dhamaato 3 maalmood 2 maalmood maalin toddobaad iyo wixii la fido taasoo faa'iidadkana faa'iido u ah dawladana faa'iido u ah. dhanka kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Ibrahim Idle Suleymaan ayaa booqday bandhiga waxqabadka garsoorka ee Suudaan isagoo tibaaxay inuu indhihiisa ku soo arkay waxyaabo la yaab leh taa oo ah diiwaanka dhulka ee Suudaan 1928 ilaa imika in la hayo arrimahaasi maruu la hadlayna amaba uu ka hadlayay waxa hadaladiisii ka mid ahaa bandhigyo ku saabsan waxqabadka garsoorka Suudaan waxyaalihii ugu la yaabka badnaa ee aan ku arkay ayaa waxay ahayd in waxa ka mid ahaa in diiwaanka dhulka ee Suudaan 1928 ilaa maanta la hayo oo gacanta lagu hayo sida markaan uu yaalo maxkamadda sare ee dalka inaga waxa sharci ahaan uu dhigaya in maxkamadda racfaanka yaalo laakiin iyaga inkastoo oo limba faraa lagu hadaa laakiin iyagu waxa lagu aaminay garsoorka lagu aaminay marba laakiin maxkamadda sare u yaala waana shay mudan ku dayasho. shirkan ayaa lagu wadaa in uu socdo muddo ka kooban 3 maalmood isla markaana uu ku egyahay maalinimada Talaadada ee ina soo aadan hadduu allaydmo. Cabbaas Maxamed Nuur warbaahinta qaranka caasimadda 3 geesoodka ee Khartoum.